annaga adiga waxaan kugu xamanaa inaad leedahay saaxiib adiga mar dhankiisa aad aaday mar adiga dhankaaga aad imaaday si qurux badan kuu soo dhaweeyay adigana si qurux badan aad u soo dhaweysay ma laga yaabaa haddii berito waxaan annaga u malaynayno aysan noqonin oo adiga noloshaada si gooni ah meel kale ugu soo baxdo ama qof kale oo ku guursado cilaaqaadkaas iyo wada socodkaas ma wuxuu ku ekaan doonaa oo keliya markii lagu guursado kadib ma sii socon doono wuu istaagi doonaa mise sida annaga aan niyaddeena ay tahay qofkaasaaba noloshaada dhabta ah oo adiga beritoba aa isleenahay qofka aan ku halayn karna maariyo waa wiilkaas baranigana waan aragnay xoogaa hadallada barankigana waan aragnay walaahi horta su-aashaan in badan waa ka dhunteen ayadoo saas ay tahay haddana waxaa rabaa inaan jawaabo kowdhe waxaan doono inay ku qanci doontiina cilaaqaadka maanta ani wiilkaas igala dhexeeyo ma joogsanayo ininka siyaa maanta niyadiina ku jirto laba midaa niyadiina ku jirto taasoo ah inay run tahay iyo inay been tahay inay run tahay inay been tahay u deenaynaa waqtiga u deenay maanta hadalkaaga waxaan ka baxsaday wax yar hadalka markaad waday markii waayo arag lagu dhahayo qofka markii hadalka uu hadlaayo dadka waxay qiimeynayaan hadalka qofka afkiis ka soo baxayo qofna wuxuu raadinaa boontii hadalkaas oo ka dhex helay ku fahantay dadka annaga waaweyn waxay dhahaan qofka markuu hadlaa isma maqlo laakiin qofka soo horjeedaa maqlo waxaa tiri calaf waa meeshiisa haddii calafka meel kale uu ii geeyo cilaaqaad ka socdo ma istaagi doono haddii uu calafka kuu geyn waayana sida hadda niyadeena ku jirto unbaa dhici doonta maadaama lagu guursado inay caannimadaada dhammaanayso muuqaalada aad soo dhigtid qaabkii hadda fiiska u helaan inaysan beri u heleynin maaminsantaa dad badan oo hadda maadaama adiga aan lagu qabin ku sabood garaynaayo oo aad isleeyahay dadkan gabadhaan beri inaad nolosha aad wadatana macquul ah oo aad rajo kaa qabo oo maanta rajadaas kugu sabood garaynayo beri haddii aad guursato ma laga yaabaa dadkaasoo dhan iyo magacaan iyo waxyaabahan hadda aad leedahay oo dhan saameyna ku imaado maaminsantahay intaasoo dhan qofku wuxuu qiimeeyaa marka uu rabo noloshiisa oo dhan ama markuu ku xiro social media ani ahaan gabaraa ahee maanta anoon ammaan iga ahayn gabaraa ahee waa laga yaabaa dad i rabaan inay jiraan waa laga yaabaa dad igu haminaya inay jiraan ayagoo jecel ahaan xitaa dad maanta iska kee jecelo iska kee daawado way jiraan ayagoo xitaa guul iga rabin kori saas ee tahay nolosha ani ahaan haddii aan guursado kole maariye le ahay qofkii markaasiti igu daawan jiray in maxaa la dhahay asingal ahay taas horta waa meesheedii kowdhe laakiin mar walbo ani micne iguma fadhiso aanimadan been ku sheegay haddii aan guursadane anaana rabin boorta social mediana kusii badnaado saa jeclahay marka maadaama uu muhiimad ay ii ahaanbo inaa social media ahmiyaddaas uusan ii lahayn so haddaa guursado walwal iigama jiro ma fahanti haddaa guursado nolosha dhan